marka inta ciidankeena burhana juule iyo ciidankiisu inta yimaadaan birqod fariistaan ay oran lahaayeen halkan ku soo xaroodo waan idin kala dirfay hubkana dhiga amxaarana meel bay taagan tahay oroma iyagu dib u dhac dib bay u jirtaa waxa laga hadlayaa waa inaga iyo canfarta iyo kuwa kale ee dhabuubka iyo gambeeli iyo binishanguul iyo waxyaalaha yar ay haystaan iyaguna ciidamo fara badan oo markii horeba liyu bilis sameeyna lahayn marka laga reebo canfarta oo warka dawladda dhexe ka soo baxay liyu booliska ku saabsan aqbalay oo sidoo yahay u qaatay oo ogtay adiga ma jiraad noo sheegi kartaa ma jiro cid kale oo maqlay oo sida u qaadatay ma jiro haddii marka deegaanadii Itoobiya ee kale ayna qaadanin oo waliba deegaanadii ugu xoog badnaa ama ciidamada ugu badan lahaa ee Axmaare iyo Oromo aysan qaadanin Soomaaliduna ay qaadatay soo ma muuqan kara in go'aankaasi Soomaalida kaliya ku fuli doono horta Axmaarada iyada oo negotiation baa la geli doonaa waa la heshiin doonaa Oromaduna kuwa hadda lagu amarka ku soo baxayba ma jiro maadaama ay leeyihiin ururka Ola oo Oromo Liberation Army la yiraahdo gobolka ka dagaalamaya oo ay leeyihiin sidii waagii hore oo la dagaalamaysay ayay xooga halkan uga dagaalamayaan ilaa ay xoogagaas ay la dagaalamayaan la yiraahdo way ka guuleysteen ciidamadii markaa way soo dhiibeen oo wixii ka dambeeya markaa unba gobolada Oromaduna ay soo galaysaa amhaarana hadda inta iyadu resistance sameynayso way samayn doontaa laakiin inagu ilaa hadda wax resistance samaynin wax diidmaana maynaan samayn wax doodana maynaan samaynin go'aanka waynu qaadanay wixaynu ka yeeli lahayn saynu uga faa'iideysan lahayn mustaqbalka un bayna hor yaala inaga kaligeena ma noqonayo haddii uu gobolada kale ka fulaynin inagana kama fuli doono waayo waxa hadda la isku waxa laga hadlayaa hadda waa hadalloon wali ficilkii looma gudbin marka amxaarana meel bay taagan tahay Oromo iyagu dib u dhac dib bay u jirtaa waxa laga hadlayaa waa inaga iyo canfarta iyo kuwa kale ee dhabuubka iyo gambeeli iyo binishanguul iyo waxyaalaha yar ay haystaan iyaguna ciidamo fara badan oo markii horeba liyu bilis sameeyna lahayn marka laga reebo canfarta waxa tidaan aragtay ahaan waxa ila saxan in militariga Itoobiya la galo oo maaragtay boolis federaalka la galo waa sax hadii la galayo Itoobiya hadda ka tirsannahay oo deegaanada Itoobiya deegaanku ka mid yahay hadday sidaa tahay soo xaq uma leeyihiin inagoo aan ciidamada liyu booliska iyo ciidamada xooga gaarka kala siman deegaanada kale Itoobiya ee wax diidi kara ama wax yeeli kara in aynu sideena u gallo inagoo aan liyu boolis lagu dabaqaynin kala diridooda iyo inay ku biiraan ciidamada militariga dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ee madaxa banaan inay ciidamada qortaan oo ay galaan soo xaq uma yeelanayn awal ba xaq weyn u lahayn laakiin waxyaalaha aynu ka warwareegnay kamid tahay wiilasheena dhalinyaradu kuma dhiiradaan ciidanka militariga inay hadda galaan waagi dagaalkii Eritrea galeen bay galeen waagaana ciidankii galeen dib badan baa ka soo gaadhay kuwii dhaawacmayna waa la dayacay ciidankii intii ku soo hadhayna qaar badan waagi faraha laga qaaday waxoogaa yarun baa ku hadhay sidaa daraadeed marnaba ciidanka militariga haddii laga rabo gobolka Liibaan iyo gobolka Daabo oo waxoogaa ciidamo wiilali had iyo jeer ay galaan mooyee deegaanadan laga soo bilaabo Faafan iyo wixii ka hooseeya dhalinyaradu kuma dhiirato inay ciidanka militariga galaan fikiraba ka dhacsan had iyo jeer waa ciidan xabashiyeed maxaan u galeynaa maxaan daro xabashiyeed ugu dhimanaynaa laakiin inay wax bartaan waagi Hayle Salaase ciidankii Hayle Salaase waaga saddex baylood oo Soomaaliya ku jiray saddexdii baylood ba waagi damba Soomaaliya yimaadeen saraakiil baa ku jirtay ilaa commandos ah dhamaantood Soomaaliya wada yimaadeen waa laga faa'iideystay laakiin hadda waagan dambe ciidanka waynu ka warwareegnaa intii oona laftu dagaalamaysayna qofka xagga u dhawaada dambiil uu ahaa wixii hadda ka dambeeyayna dagaaladii Tigreega iyo ay bilaabmeenna dhalinyaradeenu kuma dhiirato laakiin ciidanka banaankeenu ka joognaa tignikada faraha badan ee jigjiga maanta taala hadii berito la kala gurto cid hadii leena dhaqaaqa xataa cid gacanta inoogu haysa ma jirto sidaa daraadeed baan u leeyahay mar walba waxaynu u baahanahay inaynu ciidanka galno option-kan kale miyaan inaga oo liyu booliskeenii haysanaa inaan geli karin awalba way inoo furaytaa laakiin hadda haddii waxaanu isweydiinaynaa war haddii liyu booliskeenii uu liyu boolisyada kale la mid noqdo oo liyu boolis oo dhanba la wada baabiinayo oo dowladda federaalka go'aanka wada gaarayso oo go'aankaana la wada hirgelinayo dee yaa laynaga hoos guurin intii laynaga hoos guuri lahaa had iyo jeer inta badanna waxba laga yaabaa focusku inuu dhinaceena ku soo jeedo maadaama aynu Soomaali nahay marka aynu u baahanahay mar walba inaynu taxadarkeeda yeelano garasho iyo caqliga yeelano wada tashina yeelano mushkilada meesha taala had iyo jeer wada tashi ma galo go'aanadeena waynu iska gaadnaa korun baa laga yiraahdaa saasa laga soo yiri go'aanadeena waa la iska gaadhaa wada tashi iyo cilmi baaris iyo diyaarin iyo ka fikirid iyo wax qorid inta ma sameynaa falkuun baynu fulinaa tanna haddana sida buu inoo dulyaala marka inta ciidankeena burhana juule iyo ciidankiisu inta yimaadaan birqod fariistaan ay oran lahaayeen halkan ku soo xaroodo waan
baanu idin kala diray hubkana dhiga inta ka horeysa inuu baahan inaynu inagana ka tashanaade way hadiiba ay go'aankan hadda dawladda dhexe ay soo saartay deegaanka Soomaaliduna hadda uu noqday deegaanka ugu horeeya ku waafaqay hadduu sida hadda loo sheegay uu ku hirgalo Oromo oo aynu darisnahay xuduudda ugu dheer aynu leenahayna ay leeyahay jabhad bay leeyihiin oo ay la dagaalamayaan oo ciidamadoodu waa ilaa amar dambe maxaa ka iman kara marka Dr. Doral aqoon badan baad u leedahay arrimaha xuduudaha waxa ka taagan waad ogtahay inaga iyo Oromo xuduudda aynu leenahay iyo dhibaatooyin ka jirana xanfar iyo iyadana inaga dhaxayna waa ogtahay maxaa ka dhalan kara marka ciidamadan ilaa hadii la yiraahdo booliis caadi ay noqdeen habkii ay hadda ka hor u shaqeynayeen uma shaqeyn karaan inaga Soomaali ahaan maxaa ka dhalan kara ciidamadan hadii ay kala diridaas hadday timaado hal midun aan soo wada garan horta hadii Itoobiya ciidamadeeda wada kala dirana kamid baynu nahay marka cid walba ciidankeedu waa la kala diray kii Anfartana waa la kala diray kii Oromada waa la kala diray kii Amxaarada waa la kala diray kii Soomaalidana waa la kala diray kaas waa go'aanka hadda la leeyahay federaalku waa go'aankaas fuliya hadii ay noqoto inaan la kala direyn ciidamada qoliyaha kale aan la kala direynin deynagu sacaboolay ma noqon karo يعني لوك ليوبليس كان ما أنت شرا ددوينه هنا هو كيف وكان يجي مدة يوشري هذه هذا نيساق الله قد يقول 6 مليون أو ساقنا الله قد يقول قوة ضد كان الله قد يقول 6 مليون وسعبلوا بينو نقولنا عدي دون تبع مور ما نقطة ما عنفر نقطة أما عدي تبع نقطة أما حتى الصومال ده الحدود ده لا لنا نقطة ده هلا مرة بنسكن نقولنا سيدا درادة فكر كان وإنه مر بكوس ليس هي أمن قومي جينا أمن قومي جينا وإنه كوس ليس هي أو أمن قومي حدود ده إن الدجان كانوا كوس ليس معي وإنه نسي استراتيجي وقف فكرينه أما حاجة ورمضة أما حاجة عنفرته أما عدة دون طبعا نقطة ضد كان وإنه نقول أمنيهان ضد هذا أو بنان كلا جهلي أو وحبة قبسن كريم وإنه كوف فكرة خوب كينا هنا هيسنو ويلاشينا هنا نشوفنو مقعودي هلا بدلو دركودي هلا بدلو لكن قابكودي أمني جاي وحوجا كمان لهايين سيدا يوتشوجي لهايين وين نوقف فكرة أنت إنه جور هنا وين الدولة الدجان كصومالو قرشها أي لا تمادو وأي عيدا كذا يسقيه هو بيسن مالي بدقي لها حتى اللي بوليس يجوا بدل كبوليس كا يجوا بدقموين كتشوجا يجوا ميجا تشوجا يجوا مجالوين كتشوجا وين يجون هذا السيدي مجالوين كوتشوجان هذا اللي ما بقول دقمدهم كتشوجين وين ما أنت بقولي كنتم كتشوجان أو بوليس هو بكودين هايستا أو ضدك يا شعب كوي أمني جوده يحدود هذا العالم بالنقلان قليها كلا إثيوبيا روائد الله بالنقلان لكن أنت قليها كلا إثيوبيا لو دايو إن هوبكا هي مقعود اللي بلسيدو دي لو دايو كالي جيل هدي لي إذا سومالي با كليهم بالوقوف لنا إياه تايضا واحد نقاضن كرماها شعب كانوا ما قاضن كرو دولة دينو ما قاضن كرتو إن عيدنا ما قاضن كرتو وحي كسر بحارة واحد نقول تون تاون ده قرارات صدق به وفائدة عندنا والله وحقاك ألبا وما سنت دكتور وياه